xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta Axmed Abdulqayd oo kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyay inay garab taagan yihiin ilaalinta madaxbannaanida iyo wadajirka Soomaaliya. Axmed ayaa tilmaamay in dal waliba uu waajib ku yahay ilaalinta dal kale, taasina ay tahay axdiga lagu dhisay qaramada midoobay iyo ururada kale ee caalamiga ah. sidaas awgeed loo baahan yahay in laga hortago xadgudub waliba oo sababi kara xiisad. Xoghaye Abdulqayd ayaa shaaciyay in xalka kaliya ee lagu dhameyn karo muranka ama xiisadaha taagan uu yahay in la wada hadlo iyada oo dhinac waliba uu dhanka kale xushmad iyo qadarin u muujinayo. Waa sida uu hadalku yiri. xadgudubka Itoobiya ee ku sameysay Soomaaliya waxaa ka dhiidhiyay ururo, dawlado iyo dhinacyo kala duwan oo dhammaantood hoosta ka xariiqay inay lama taabtaan tahay ilaalinta madaxbannaanida iyo wadajirka Soomaaliyeed. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa horey u sheegay in haddii Itoobiya ay qaado tallaabo ka dhan ah Soomaaliya in iyadana loo qaadayo 2, 3 ama 4 taako si looga falceliyo xadgudubka ay sameynayso.